السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وشوال ميدي وهذه سلالة أخيارتا وعا halkan idinka soo gudbinayna casharkeeni labaad oo ku saabsanaa xoojinta raganimada iyo waxyaabaha faa'iidada u leh iyo waxyaabaha faa'iidada u leh hadaba waxaan casharka idinka soo gudbinaynaa cunista khudaarta cagaaran iyo cunista malayga dabiiciga ah oo waxyaabaha awoodda kordhiya raganimada xoojiyana dareenka qofka isagoo uu ka helayo fitamiinaad kala duwan waxa oo kale oo aad isticmaali kartaa cunista timirta haddii aad caadaysatid inaad subax walba markaad toostid timir cuntid waxaa hubaala inuu dhiiggaagana kordhayo caafimaad ahaan iyo tamar ahaana aad u kordhaysid wax badanna aad ka dareemaysid koritaanka jirkaaga cunista timirtu waa faa'iido aad u weyn ayaa ku jirta waxaana laga helaa fitamiinaad kala duwan sidoo kale cunista malayada oo aad cuntid oo aad caadaysatid cunistiisa asbuucii 2 ama 3 jeer waxa ay faa'iido weyn leedahay sidoo kale korinta dhiigga caafimaad ahaan waxa ay u fiican yahay waxaan uu xoojiyaa dareenka iyo awood inaad u yeelatid raganimadaada inay joogto ahaato waxaa kale oo la isticmaalaa oo la cunaa cunista gusbadeedka oo ah isla shay badda laga helo waa xubin aad isagana u awood siyaada u yeesho xubinta taranka ragga aadna looga helo wax dabiici ah oo ku jira cunista ku dadaala haddaba cunista malayga iyo waxyaabaha fitamiinaadka khudaarta cagaaran si dhiiggoonnina ugu soo noqdo caafimaadkiinnuna uu joogto u ahaado awooddiina raganimona toosay u ahaatay idinka oo uga baahi baxaya dawooyinka aad isticmaalayseen oo aad ku xoojinayseen raganimada haddaba ku bedelo waxyaabaha dabiiciga sida cunista khudaarta cagaaran cunista malayga cunista timirta cunista gusbadeedka waxyaabahaas oo dhan aad ayay ku anfacayaan waan idin salaamayaa